dowladdeena sharafta leh khayr allaha siiye maalmihii dhoweyd ee tagay ay soo rogtay in bishan barakaysan qaadkii la joojiyo way ku mahadsan yihiin waana tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaase ka sii fiican in tallaabada dadka loogu wado oon dib loogu soo celin waxa walaalayaal maanta aynu arkaynaa markii la yidhi waa la joojiyay iyadoo ramadaan ah haddana waddankiiba inuu xaalad adag galay oo meel walba gobollada Somaliland iyo magaalooyinkeeda qaad la soo gelinayaa lagu qabanayaa oo haddana lagu gubayaa waxa halkaa ka muuqata qaadku dadkeenna halka uu ka gaadhay nin dhan baa hantidiisii ku waayay waxoogaa qaado uu soo geliyay oo lagala wareegaya waxa walaalayaal markaa muhiima inaynu ogaano marka hore dawladdu arrintaa way ku mahadsan tahay inay waliba ku sii wado oo aan yaani waxa weeyaan dib loogu fasixinna way habboon tahay oo sidaas waajibku u yahay laakiin far kaliya fool ma dhaqdo gacmana wada jir bay wax ku gooyaan haddaan bulshada iyo mujtamacu iyagu dareemin dhibka qaadka oo iyagu aanay ka qancin dee xoog lagu muquuniyaa waxba u tari maayo akhil muslim walaalayaal waxaan munaasabadan maanta uga faa'iideysanayaa inaan naftaydiiyo nafihiinaba dareensiiyo bahalka qaadka la yidhaa balwadda qaadku waa xaaraan maaha xalaal shariicadeenna islaamku shay kastoo dhibaatadiisu ay ka badan tahay dheeftiisa waa muxaram bay ka dhigtay khamrada iyo khamaarka markuu rabbi ka warramaayay xaaraannimadooda ilaahay wuxuu tilmaamo uu yidhi ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما waxay ku weydiinayaan nabi maxamed oo khamriga iyo khamaarka waxaad ku tiraahdaa dheefna waa leeyihiin dambina waa ku jira laakiin dhibka iyo dambiga ku jira ka weyn dheefta ku jirta halka qaacida waxay kala soo baxeen culimadu ma ghalaba dararuhu ala nafcihi fa huwa haram waxa dhibaatadiisu ay dheeftiisa ka badataa waa xaaraan khamrigi iyo khamaarkii baa la yidhi wa ismuhuma akbaru min nafcihima hadda manaafic baa lagu sheegay waxtar laakiin waxa la yidhi dhibaatada ku jirtaa ka weyn dheeftooda iyo waxtarkooda sidaasay xaaraan ku noqdeen waxa shaki la'aana walaalayaal maanta qaadka marka loo fiirsado haddiiba ay dheefi ku jirto wax dheefa kuma ogine xataa hadday ku jirto dhibaatada uu leeyahay baa ka weyn dheefta ku jirtay la sheegayo waxa shaki la'aana waxay dhaqaatiirta adduunku isku waafaqeen gaal iyo islaam inuu qaadku ka mid yahay maandooriyayaasha oo munadamatu sixa alcaalamiya hay'adda caafimaadka adduunka WHO 1973 ayay maandooriyayaasha ku dartay qaadka culimadeena waxa weeyaan shariicada ee diinta aqoonta u leh kutub bay ka qoreen oo horay u fatwoodeen xaaraannimada qaadka oo ibn Hajar al-Haytami waxa uu qoray taxdiiru thiqat an isticmaal al-kafta wal-qaat xaaraannimada qaadka ayuu risaalada ka qoray sheekha weyne caalimkii yamaniga ahaaye Muhammad ibn Salim al-Bayhani waxa weeyaan kitaabkiisa islaahul mujtamac ayuu xaaraannimada qaadka ku qoray abyaad farabadanna waa ka tiriyo dhibaatooyinkiisa uu ku tirinayo xaaraannimo waxa ugu filan qaadka ad-daruriyaat al-khamsa shanta usuusha ee diintu ay ilaalisay shanta midina kamay nabadgelin ee mid walba uu dhibay daruriyaadka shantii waa an-nafs wal-maal wad-diin wal-'ird wal-'aql diintu daruriyaadka shantay ilaalisay waa nafta waa diintaada waa aqligaaga waa xoolahaaga waa cirdigaaga iyo sharaftaada shantaaba diintu waa ilaalisay qaadku shantaba wax buu yeelayaa oo naftii iyo aqligii wax buu yeelayaa nafta wax buu yeelayaa oo qaadkaasi dhaqaatiirtu waxay sugeen dhibaatooyinka nafta iyo beerka uu ku hayo aakhirataanka qofka dhibaato iyo dhimasho inuu sababayo
caqligiisa ayuu waxyeelayaa oo waa maandooriye wuxuu ka odhanayaa qaadkii baa igu qarxay oo waan mirqaamay mirqaanku waa waali yar waali inay tahayna waxaa kuugu daliila marka hore sida daroogooyinka dadka isticmaalo lagu yaqaano farxad iyo rayn wuu kala ballaadhanayaa marka uu mirqaansan yahay hargeysuu dhisayaa oo dabaqyada ugu dhaadheer isagaa leh mar alla markuu waxa weeyaan mirqaanku ka ba'ana warwar iyo walbahaar baa u bilaabmaya waxay isweydiin leh waxa weeyaan maxaa kalifay inuu markii horena farxad iyo rayn dareemo marka dambena laba indhoodu isku keeni waayo oo warwarkii iyo walbahaarkii adduunka oo dhammi uu caawa ku soo xaadiro ladi waayo maxaa keenay waxaa shaki la'aana maanta dhakhtarradeenna iyo cilaajyadeenna haddaad tagtaan dad badan waxay dhibanayaal u yihiin qaadka ay cunayaan maalin alla maalinta laga soo xidhana maryihiibuu xidhanayaa waa nin miyir qaba maalintuu laan qaniinuu afka saarana halkiibuu ka bilaabayaa oo maryuhuu dhiganayaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo aniga waxba ima yeelo alxukmu lilghaalib shariicadu axkaamta islaamka waxay ku dhistaa sida haalibkee faraha badan leh waxaa la yaqaanaa sida haalibka ah qaadku nafta iyo caqligaba dhibaatuu ku hayaa dhaqaalaha dhibaatuu ku hayaa ilmihiisii oo gaajoonaya hadduu xaraaroodo mijinta jaadkuu doonanaya ilmihiisu hadduu bakti iyo dankama leh dhaqaalaha waddanka iyo dhiigbaxa uu ku hayo waynu ognahay iyo lacagta adagu inaga saaro diinta waxa weeyaan dhibaatuu ku hayaa sharafka iyo cirdiga dhibaatuu ku hayaa oo akhlaaq xumada iyo gogol dhaafka iyo zinada ugu badan sababteeda waxa ka mid oo ka qayb qaata waa qaadka imisaa dumarkeenna iyo habla ku baaba'ay imisaa inamadeenna iyo ragga ku baaba'ay imisaa reero dhisnaa iyo qoysas ku dumay sababta qaadka waxaa shaki la'aana waxa dhibaatadiisu sidaa u fara badan tahay ee aynu arkana intaasoo dhibaato oo naftii aanay nabadgelin oo caqligii aanu nabadgelin oo sharafkii aanu nabadgelin oo diintii aanay nabadgelin oo bulshooyintii kale aanay nabadgelin waxa noocaasihi wax xalaala maba noqon karo waayo shariicadeenna xikmadda iyo sharafta badan wax kastoo ummadda dhibaato ku ah way xarimtay nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa darara walaa diraar walaalayaal haddaba qaadka dhibaatadaa leh ee maanta gaal iyo islaam la isla qiray inuu maandooriye yahay caqliga iyo maanka qofka dhibaato ku samaynaya innakoo muslimiin ah innakoo bishii ramadaan inoo bilatay innakoo maanta munaasabad wanaagsan joogno oo dowladdii ay tidhi waa la joojiyey war intaa muddadaa ramadaanta aynu raacinno oo gebigiisaba nafteenna aynu ballan kula gallo qaadka inaynu iska joojinno ilaahay dartii inaynu uga tagno maaha isaga uun balwad kastoo xaaraanood lahayd ilaahay dartii uga tag waxba balwaddaada ha difaacin oo ha odhan yaa xaaraantinimeeyey caqliga saliimkaa garanaya dhibaatada uu qaadku leeyahay wax kastoo ku dhibayaana waa muxaram sigaarkaa la mid ah qaadka iyo sigaarka iyo balwadaha kale xaaraanta ah bishaa ramadaan raaciyo ilaahay dartii uga tag qofkii ilaahay dartii uga tegayay gacanta taagaya markaynu tukanno ilaahay dartii baan ugu ducaynaynaa maalinta khayrka badan ee jumcaha ah ee la sooman yahay ee ramadaanta ah haddii waxa weeyaan risiq iyo adduunu ka doonayay wax ka khayr badan allah ugu bedelo haddii waxa weeyaan isaga naftiisu ay ku mamanayd oo ku ibtiloobay ilaahay ha ka caafiyo oo khayrkiyo wanaagga allah tuso waxaynu markaa doonaynaa inaynu nafteenna go'aan adag la qaadanno oo munaasabadda ramadaanta iyo joojinta dawladda aynu raacinno oo kii ka ganacsanayay iyo kii cunayayba ay ilaahay dartii uga tagaan waxaa naftooda iyo bulshadoodaba dhibaatada ku haya een dhib mooye dheef aan dhaxal siinayn ilaahay dartii inay uga dhaqaaqaan ilaahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa qaadkaa dhibaatada inagu haya bulshadeenna allaha ka caafiyo kuwa ka ganacsanaya allaha ka caafiyo kuwa cunaya allaha ka caafiyo dheeftooda iyo wanaaggooda allaha tuso wax uga khayr badan allaha ugu bedelo